gabdhahan ugu yaraan 3 saacadood ayay ku bixinayaan tababar si ay u kobciyaan xirfadooda kubadda cagta laakiin rajo weyn ayay ka qabaan inay noqdaan laacibin caan ah hase ahaatee waxa hor yaala caqabado waaweyn oo dhaqanku uu ka mid yahay kasoo caqabada dhaqanka waxay wajahayaan maalgelin la'aan aan lagu sameeynin kooxaha kubadda cagta ee gabdhaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي وحمد عبد الداهر كمنا مقاعدين حمد النيمر وحنا هاي كابتنك كوحدة FC Tigers أم بحول FC Tigers سيدا دي وضع مقطع عالم سومالان هبلو دو شنتي سنة ودنبي ديبو سو وضع رسمين هبلو يكسو بدني ولو أني لبدي صدحي سنة هوري أني حقو سو رسمين لكن شنت لبدا سنة دنبي آدي أدو سو رسميان مركا إن waxaan doonaa anagu maadaama nahnay hablo Soomaaliyeed in hablaha xaqooga la siiyo xaq wadankii xaq dalka way ku leeyihiin sidoo kale waxaan doonaa haday garoomo noqoto haday wax kasta noqoto agab hableed sida inamada loo qadariyo anagana loo qadariyo waayo ma markaan ciyaarno anagu qaawan anagu si kala aniga sidaas imka ahaan aan ku ciyaarinay day wax awrinayga muuqato wax si kala ayga muuqdaan marka waxaan doonaa inaga xaqeygana la siiyo xaga dawladahani xaga shacabhaanba hablaha waxaan u sheegayso meel wala ay joogaan waxa jira hablo hibale doonayna ciyaaraan laakiin og Soomaaliland inaan habla laga qadarin marka waxaan doonaa hablo badan oo hibala jira habluuna inay taageero buuxa aan ka helo gabdhaha kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa imika ah mid bilow ah waxaana uu wajahayaa caqabado badan balse arinta ugu weyn ayaa ah mid dhaqanka ay tahay inuu ka gudbo si uu u sameeyo horumar dhulkeena Soomaaliland sanadihii ugu dambeeyay waxa aad u soo badanayay haweenka Soomaaliland kuwaas oo ciyaaraya kubadda cagta عبد الرحمن أردوغان نبت TV hargeysa